waxa weeye haddii la oran jiray hub baa la kala qabsaday maanta nimankii huwanta ahaa hub sax ayaa laga qabsaday. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ummadda reer Somaliland iyo ummadda islaamka ee ilaahay ka cabsanaysa meel kastoo joogaan waan salaamaya marka hore. marka xigta nimankii huwanta ahaa ee ka soo duuli jiray bariga gobolka Sool waxa weeye haddii la oran jiray hub baa la kala qabsaday maanta nimankii huwanta ahaa hub sax ayaa laga qabsaday. technico ciidaa ka fara badan ayaa laga kala qabsaday. waxaan doonayaa muuqaalkan inaad sii share gareysaan. waxaan idinkula wadaagayaa khasaarihii maanta soo gaadhay nimanka huwanta ee gardarrada jecel balse iyagu markaa aan waxba iska celin jabkii iyo hoogii iyo balanbalkii iyo bayhoofkii soo gaadhay ayaan doonayaa inaan idinka dabageeyo. muuqaalkan sii share gareeya, muuqaalkan like saara. waayahay bal waxaan idin tusayaa marka hore shantii galabnimo oo imika toon muuqaalka duubayo. muuqaalkan wariyahani wuxuu ku sugayay waa goob jooge wuxuu inooga warramayaa maanta bartii uu dagaalku ka dhacay oo ah Buqdarkeyn jabkii gaadhay qoladii jabku gaadhayna uu ka hadlaya bal in yar ileega. daawadayaal halkani waa deegaanka Buqdarkeyn ee ka tirsan gobolka Saraar. deegaankani waxaa 8 subaxnimo saaka ka dhacay dagaal xoog leh kaasoo u dhaxeeya ciidamada madaniga ee deegaankani ku sugan iyo huwanta ku soo duushay deegaankani waxayna ciidamada madaniga dhirbaaxa kulul ku dhufteen ciidamadii halkaasi weerarka ku soo qaaday iyagoona ka qabtay gaadiid kala duwan. dagaalka ayaa weli socda iyadoo saacadda geeska Afrika ay tahay 5 galabnimo oo goowa. waayahay bartaan kaga imaado waxaan haddaba idin tusayaa tiknikadii laga qabtay SSC bay ku qorteen intaana tiknikada laga qabsaday ee lagala wareegay ee hubka ugu badan saarnaa intaana ay tusin. waxaan doonayaa baryihii ugu dambeysay inaan idin sheego. waxaan doonayaa baryihii ugu dambeysay kuwan maamulka Puntland anigu maamulka Majeerteeniyan oo aqaanay ayaa buuraha Calmis kula dagaalamayay niman la yiraahdo Daacish niman la yiraahdo hub badan bay ka soo qaateen iyo saanad nimanka iyagana la yiraahdo Soomaaliya. ugu dambeyn nimankii Daacish baan la dagaalamanaa wajigii labaad ee Daacish baanu galay ayuu yiraahdaa ninka Saciid Cabdullaahi Dani la yiraahdo ninkaas ay yiraahdaa wajigii labaad ayaanu galay ee aanu kula dagaalamanay Daacish. balse hubkii dawladda federaalka Soomaaliya ay ka soo qaateen nimankaasi waxay ku maalgeliyeen oo u soo dhiibeen nimanka nabadiidka ah ee ka dagaalama bariga gobolka Sool. waxa weeye nimankaas oo u badan iyagu dhulbahante oo ma garanaysa markaa iyagu garabsanaya walaalahood harti wax la yiraahdo. bal haddaba waxaad leeyahay tiknikadii iyo hubkii maanta lagala haray nimankii huwanta ahaa ee isu soo urursaday harti daarood kuna jabeen. bal waa kan ay leeyahay mid waa ka kow mid waa ka kii kala la biiku ya waka SSC kuwaas oo yaadi anaga waqti adeer gacaliye sababay igu saarid maaha caawa kale waarya hooyada nacla ku yaala waxa tabarta maleeba kawleela hagan adeekii oo balay jiray hadba waxa adeekii oo balay jiray kawleela waka hadba waxa soo dacata la ilaaha illa allah suuqabo arbaxa maleeba garanaysa nacla hooyada ku yaala saawgula fiyood andheera laana kii kala waka sidoo kale waxa gacanta lagaga dhigay maxaabiis aan tiro lahayn loogadii calanka la dameer ku dhex sawran yahay iyagoo wada xiran baa dhamaantood aayar sidii ariga laga qabtay. muhiimaddu waxa weeye haddii aad daandaasi badan tahay ma aha inaad maalin kasta ku nadisid. waxa weeye war weli lama sheegin lamana arag ciidamada Somaliland ama ciidamo ku abtirsada Somaliland oo markaa xuduudaha ku sugan oo maalina gardarro tagay. balse nimanka maalin kasta gardaroonaya ee dhulkooda ka soo duulaya ee dhul baa naga maqan leh ee dhulna ka maqnayn waa nimanka la baxay SSC Khaatumo. wax Khaatumo la yiraahdaana ma jiro. waa ma garanaysa reer yar oo laascaanood barigeeda ku abtirsada galbeedka Sool cida degta waa noognahay. waxaan leenahay war haddii aad ka joogi weydaan haddii aad dibdiibsan weydaan haddii aad candufta dib u liqi weydaan wixii maanta idinku dhacay iyo wax ka xun ayaa idinku dhici doona. bal mar labaad waxaad ileegtiin
maxaabiistii laga qabtay nimanka nabadiidka ah ee argagixisada ah ee ka dagaalama kana soo duula bariga gobolka Sool bal hadday leeg waayahay ugu dambeyn waxaanu leenahay ama SSC Khaatumo la baxa ama maamulka Majeerteen iyo Puntland la baxa haddii aad istiraahdiin nabadda waxaad carqaladeyn kartiin Somaliland iyo ciidamada Somaliland baad ka badbaadasaan ciidamada Somaliland waa diyaar dal dadkooda iyo deegaanadooda iyo diintooda u diyaaraya Somaliland ku diyaarsan ama SSC Khaatumo la soo baxa oo soo qaata calan dameerku ku dhex sawran yahay ama buuraha calmis baanu kula dagaalamana ma garanaysaa niman daacish la yiraahdo dhaha waxa weeye ugu dambeyn idinka ayaa guul darrada qaadan doona anaguna guusha ayaa yeelan doona sidoo kale maanta waxaan hambalyeeynaya ciidamada qaranka ah ee muujiyay inay isku duuban yihiin waxaan leeyahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo maalmihii ugu dambeysay isaguna bartaa inuu ciidamadii madaniga ha qarameeyo u tagay waan hambalyeeynaya waxaan leeyahay hambalyo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ha loo sii daayo wixii ay xaq iyo xuquuq leeyihiin nimanka cadawgaana meelaha saaran. Assalaamu calaykum.